carwada bandhiga buugaagta ee magaalada Laascaanood ayaa galay maalintii labaad waxaana indhaha wufuudii ka soo qayb gashay soo jiitay abilicda iyo sidoo kale sida habsimida leh ee loo diyaariyay dhulku kala xariirsane boolaha xargaga iyo xirxir iyo boocame xuduniyo taleexiyo laascaano xaruntii gumaystaha xasuuqdee xaqu dirir ku joogay dhulku kala xariirsane boolaha xargaga iyo xirxir iyo boocame xuduniyo taleexiyo laascaano xaruntii gumaystaha xasuuqdee xaqu dirir ku joogay alxamdulilah maanta waa maalintii labaad ee bandhiga buugaagta ee Laascaanood International Book Fair si fiican ayuu u socdaa waxaa socda khudbadihii iyo gabayadii iyo suugaantii iyo sidoo kale falanqayntii buugaagta iyo maaragtay loogu talagalay halkan waa goobta aan u astaynay in dadku ay buugaagta ay ka soo gudaystaan anigu buug badan aan waqti badan doonayay baan helayo dhammaan register the bible ninkii bible ugu hantida badnaa waxa weeye waqti badan baan doonayay iyo buugga Cabdi Saciid Faarax Juxa ee qabiy quursi takoorka bulshada Soomaaliyeed ka hadlayay badal qurux badan baa ka dhacday waxaan u mahadcelinayaa muxuu ahaa dadkii barnaamijkan muxuu ahaa soo qaban qaabiyay ee ugu horeysa muxuu ahaa hay'adii muxuu ahaa tabaca iyo energy-ga iyo muxuu ahaa iyo gelisay iyo qarashaadka SVO aad baan ugu mahadnaqayaa anoo afka ku hadlaya gobolada SSC gaar ahaan afka gobolka Sool waxaan u mahadnaqaynaa ka dhalinyaro ahaan anigoo magacayga iyo magaca dadka mandaqada ku dhaqan ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa hay'adda SVO iyo gudoomiyaha hay'adda SVO Cabdikariin Saciid Cabdi oo muxuu ahaa hawshan bandhigu ahaa waxaan rajeynayaa marka bandhigaas soo gabagabo insha Allah in wax badan oo manaafacaad oo aqoon oo cilmi ah ay ka kororsan doonaan dadka reer Laascaanood iyo dadka martida ay ka soo qayb galay runtii meel walba waa la iska yimi oo Soomaaliya degto waxa la iska yimi Kenya waxa laga yimi dowladda Soomaalida Ethiopia anagu waxaan ka nimi Garowe iyo Puntland baan ka nimi waan ku faraxsanahay in aanu ka soo qayb galno oo aanu qayb weyn ka qaadano bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalintii labaad carwada caalamiga ee buugaagta magaalada Laascaanood gobolka Sool 12 bishii December 2019 wali waxaa socda panelskii iyo debateskii iyo doodihii dood cilmiyeedyo aad u qiimo badan oo dad Soomaaliyeed oo kala yimid meel kala duwan Soomaaliya iyo Xamar Jigjiga Somaliland gudaheeda doodahaas socda buugaag aad u qiimo badan oo lagu soo bandhigay iyo dadkii qoray iyo qorayaasha dadkii baa runtii oo talented ayaa debatekooda ay socdaan iyo doodahoodii maalin aad u qurux badan farxad bay runtii noo tahay waa dhacdo taariikhi aan ku faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado waa maalin weyn waa maalin aanu munaasabad aanu in badan baxnaaninay waa mid aanu ku dadaalay waa mid aanu natiijadeeda gaadhnay waa mid aad maanta cid walba isaga timid dadka inta ku hadasha may iyo maxaa tiri ay isugu yimaadeen qof waliba uu doorkiisa ka qaatay la muujiyay nabadgelyada la muujiyay nolosha dadka la muujiyay horumarka adeegyada bulshada la ogaaday waxa gobolku yahay la ogaaday amniga aanu jecelahay gobolkan amnigiisa wax laga sheego isla markaasna hay'adaha had iyo goor iyo leeyahay baan la saaray baanka laga qaado la ogaado in dadku ay yihiin dad horumar jecel dad wadaniyad jecel dad ay tahay gobolka taariikhda muujisada badan ee aan anigu arkay waxa kamid ah qof kasta oo magaalada maanta aan arko ee iga soo horbaxay waxaad moodaa in aan weligii la soo noolaa tii markii aan baaray qofkan xagad ku aragtay soo weydiiyana waxay noqotay jawaabtii inuu noqday qof aalada socialka sawirkiisa ugu soo noqday dabtana maskaxda ay record gareysay aad baan ugu faraxsanahay garee qof dhan oo ka soo dhaafay Mareykan oo buugtaas kaliya iyo dadkiisa inuu daawaday dadkiisa tiimka Maxamed Shagaxle ee Canada jooga ee hawsha isu soo xilqaamay noqda kuwo markasta barbar taagan horumarka bulshadooda alxamdulillah rabbil caalamiin Laascaanood International Book Fair oo ah bandhig buugaagta iyo dhaqanka oo isku jira meel wacan buu maanta maraya waana markii ugu horeysay
insha allah uu inoo socon doonaa aniguna hadiyadan ay soo abwaangabuud wuxuu ka wakiilka ahaa maxamed shagaxle iyo tiimkiisa waxaan ku soo wareejinayaa tiimka qabanqaabada oo iyagu hawshan wada ducaale runtii waxa weeye guul weyn iyo farxad iyo wax ilaahay loogu mahadnaqo bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada laascaanood oo markii ugu horreysay baradheereeye oo ka dheereeyey kii Garowe kii Muqdisho kii Hargeysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida bandhigyadii lagu qaban jiray sida aad indhihiina ku daawanayseen waxaa jira rag farshaxan ah oo Amiin Caamir oo kale ah oo dhalinyaro reer laascaanood dadka sawiraya oo markiiba sawirkiisa soo dhigaya waxaa jira fardihii ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka dhaantadii jigjiga Soomaali shanta Soomaaliyeed ba afar ka mid ah Djibouti ba maanta ka maqlayd waa inay markii ugu horeysay laascaanood lagu qabto laascaanoodna waa buntada Soomaaliya isku xidha shanta Soomaaliyeed ba xudunteedii weeye dhinac walba inta ka xigta gobolada waad garanaysaan dhalinyarada jaamacadaha iyo iskuulada bay ka soo qayb galeen madashan quruxda badan ee garoonka Cabdillah Cabdi taariikhiga ah haatan lagu wado amaba ay ka socoto bandhigii laascaanood international fair oo runtii looga wada yimid dowladda daafaheeda khaasatan dowladda deegaanka Itoobiya Kenya iyo runtii wadamo kale waxaynu wada ognahay waa markii ugu horeysay bandhig noocan oo kale lagu qabto waxaa runtii ka soo qayb galay bulsho aad u ballaaran mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u mahadnaqaynaa runtii tiimkii fikirka lahaa anaguna aanu kula shaqaynay inaanu madashan u diyaarino quruxda badan runtii si absami ayay noo socotaa ilaa hadda waxaa la xusi karaa abwaano waaweyn oo runtii geyiga Soomaaliyeed magac kule ayaa yimid gobolka soo la gaaray mar haddii dhallinyaradii maanta sidaa garoonka quruxda badan isagoo aysan ag taagan siduwihii ciyaaraha garoonka quruxda badanna loo sameeyey buugagtii iyo waxbarashadeena waxay doonayaan inay gaarhaan marka aqoon waa iftiin laga yaabaa in laascaanoodda maanta aynu aragnaa ay ka duwan tahay tii shalay la garanayay waxaanu rabnaa tamaantu inay ka duwanaato tabirito oo buug feerkii uu ka socdo maalintii labaad waa wax ilaahay mahad loogu noqo waxaa laga yaabaa dad badan oo daafaha caalamka naga daawanayaan inay aamini waayeen meesha in laascaanood tahay waxaan leenahay meesha waa laascaanood waa garoonkii Cabdi Bile waa carwadii buugaagta laascaanood soo buug feer waxaan leenahay soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa magaaladu waa magaaladiinii hawshuna maalintii labaad ku jirnaa madaxeem halkan waxa weeye waa maktabad buuhoodle laga furayo waxaan leenahay buuhoodle xagga aqoonta u shaqaaqaysaa aqoontii maktabaduna waxaas aqoonta ku soo bilaabato waxaan leenahay qof walba aanu shan buug shakhsi ahaan maktabadda u deeqayaa qof kastoo muwaadinana waxaa la doonayaa inuu buug u deeqo qofka buug 2 3 4 10 laascaanood hambalyo intaasoo dad aad martiqaadeen iyo soo dhaweyntiinaba 1000 jeer hambalyo waa laynaga gudoomay waxaana tusteen wixii laascaanood laga sheegi jiray inay buug been tahay oo saqad dhaxal la iska wareeg marka waxa la barta ka sii dadaala Cabdikariin iyo tiimkiisa SVO-ga magaalada laascaanood maayarka dhammaantiin ba hambalyo iyo shacabka laascaanood oo isku yiiliyay qalbi waxaanu ku sugannahay bandhiga buugaagta ee laascaanood oo ay noqonayso markii ugu horeysay ee lagu qabto gobolkeena runtii dareen gaar ah ayay leedahay iyo farxad intaasoo marti sharafa oo ka kala timid dalalka daafaha caalamka gobolada dariska laascaanood iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan dareen gaar ah ayay leedahay oo de horta meel buugaag lagu soo bandhigayo buugaagtii lagu qoray Soomaali idilkeed qortay oo farta Soomaaliga ku qornaayo dhan baa lagu soo bandhigayaa anigu buuga miiga ilaa madaxtooyada waan iibsaday